Shawriga degmada Dharkeenley waxaa xaafadan looga qaxay burcad hubaysan oo dadka disha kuwaasoo habeenkii dadka ka dhaca wax kasto sitaan marka amniga xaafadda aad u xun yahay marka dadka xaafadda amnigeeda oo anshuurta ay ka qaadanayaan waxaan u sheegaynaa inay fiirmo gaar u yeeshaan xaafadan amnigeeda gacantu ka baxay xaafadan murug xadkeedii dhaaftay ayaa ka jirta dhacaya dilku nolol maalmeedka ayuu halkan ka noqday Xuseen Maxamed Jamaal waxa uu ahaa wiil yar oo noloshu bilow u ahayd uu shaqaysanayay hami badan ayuuna nolosha ka lahaa balse waxaa xaafadii ku soo barbaaray ku dilay tuuga dhacda dadka kuwaasoo caadaystay dilka hooyo Faadumo Jamaal Cabdullaahi waxay dhashay wiilka ay dileen kooxda burcadda ahi waxay la ilmeynaysaa xaq darrada looga dilay wiilkeedii ay jeclayd rabbigii hibadii ii dhiibay ayaa haddana iga jeclaaday alxamdulilah laakiin gacan ka xaq daran ayaa cunugayga iga dishay maantana cabasho ma muujin karin yacni waxaan la calool xumaanaya waxay tahay aan dacwo u jeedisan waayey yaa haddaan dacwooda xataa yacni aan u jeedisan waayey ma u dhalanin ani waddanka waxaan ka soo jeedaa waddanka Oromiya khaasatan magaalada Baale ayaan ka soo jeedaa yacni laakiin waxaan ku dhashay oo ku barbaaray hooyaday yaa raxween ah waxaan ku barbaaray magaalada Xamar weligay waddankayga ma aanan tagin yacni waxaa yeelan waxay tahay meeshan aan ku dhashay yacni hibadii ilaahay siiyay alxamdulilah qadarta ilaahay waa ogolahay alxamdulilah inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun xaafadda Shawriga degmada Dharkeenley dhaqaaq dadku ma sameyn karaan habeenkii iyagoo ka baqaya dadku in la dilo ama la dhaco Cabdikariin Maxamed waa mid ka mid ah macallimiinta Xuseen Maxamed Jamaal oo ah wiilka la dilay wuxuu ka sheekeynayaa dhibka xaafadda Shawriga ka jira xaafadda waxaan aragnaa kaliya tuuga iyo macuusley aragnaa yarkan wax dilayna waxay ahaayeen tuuga iyo macuusley dhibkan hadda intuusan dhicin aniga waxaan deganahay jidkaan naga dambeeya hadda deganahay habeenada ka mid ah waxaa dhacday macnaha waxaan rabaa xoogaa inaan idin tusaaleeyo dhibaatada xaafadda ka jirto habeenada ka mid ah gabdha mid aan kuwaani la dhashtay iyo mid kale ayadana deriska ahayd xilli imtixaanay lahaayeen imtixaankooda wax diyaariska markay ka imaadeen ayagoo soo sagootiyey jidka ayagoo jooga tuuga kuwana tuuray ku qabtay kuwana qoryo ku qabtay gabdhihii waa qayliyeen markay qayliyeen anaga ku soo baxnay xaafadda xoogaa waxaa ka jirta rabsho kalena way jirtaa oo ciyaalka xaafadda meelahan kor ka imaaday iyo xaafadan degan oo israbsheeyana way jirtaa marka annaga waxaan u maleeynaba ciyaalkii rabshada waday inay yihiin aan u maleeynay waa ku soo orodnay iskoobe iyo wixii markaas inoo dhowaan la soo wada orodnay gadaal dambe markaan ku soo dhowaanay qoryaana loo soo jeestay xabadaan noogu soo furay ilaahay mahadiisa habeenkaas koraan nooga dhigay Aaba Jamaal Cabdullaahi waa aabaha wiilka la dilay waxa uu fadhiyay meel aan ka fogeyn halka burcaddu ku dishay wiilkiisa wuxuuna Shabeelle TV u sheegay in weli cabsi ay ka jirto xaafadooda walaalo horta dhibka xaafadda yaalo maanta dhibka dadka ana qabo Soomaali inaa qabto laakiin aniga xaafadan Shawriga dhib aad iyo aad qabnaa wax haddanu bilaawatay ma aan wiilkay kaliis ka bilaaban isbuuc kasto maalin kasto habeen kasto mar rafaada joognaa موبايل حافظ إسكال عافية نفتنا ولا فينا مغرب الدلقة قريال وكل أرداء نم عويس وتدارك ولا الأرداء لا بقف لا يرد ولا كل أرداء حافظ لي بعض يالو إلهي أنا سوق جارو أنا ويلكي والدي الحمد لله مركي اللي دلائن واجو كان ماشي فدي ماشي الجودي لا ويلكي نسكي شنك طلعوا نوم جرين وحاول ويل لا يرد بدن ماشي فدي أنا ماشي فدي حافظ شورك ملك متاعي مركا ويلكي ويل بدن ماشي فدي لو ويلا صو مرتو قريو وطن وددن معويس وددن معويس لي هذا مركز عيالكي وو واكو أوريين هدي كو أوريين كبعد ويلكي حبضي حاجة كسوردين ويلكي يكون عادي الحمد لله إله السي هذا إله خاد لكن حافظ الشورقة ما أنت لب كذا ما يرو حافظها محمود شو أولي إنه تملينا قريات لسنا ما تذكرنا قريات ضيعتنا ما ضيعتنا دقمدا تجي ورقدها صوغ وسطي كوما شقيس فاطمة جمال عبد الله وإيدada wiilka la dilay waxay ka dalbanaysaa dawladda federaalka Soomaaliya inay cadaaladda keenaan dadkii dilay wiilkooda waxaan naga baxay wiil 17 jir hadda ogooday bisha labaad waxa laba bil ka qaatay 18 sano ku faantay dawladda waxaan ka codsanaynaa inay noo raadiso wiilkeena wixii dil wax alla inay noo raadiso oo dadkaas aan ka mid ahaan Soomaaliya anaga waxaan ka sheeganayna malahan hooyadan waa naag Soomaaliya ku kornay iskoolna Soomaaliya ku dhiganay adduunyada aan leenahay maanta Soomaaliya ku yeelno Soomaaliya maanta dib ay nooga gaarsiin malahan waxa aan ka sheeganayna malaha laakiin waxaan codsanaynaa haddana aan dawladda ka codsanaynaa guriyana cashur waa ka bixinaa ma fahamtay wax kasta ay Soomaaliya ay tahay waa la qaybsanaa Soomaaliya anaga waxaan rabnaa wiilkeena dhiigiisa
nala raadiyo oo dadka dil la raadiyo. Aabbe Jamaal Cabdulaahi waxa uu dacwooday saldhigga degmada Dharkeenley balse saldhigga waa u raadi waayay dadkii dilay wiilkiisa waxuuna ka waayay wax garab ah. teedii wiilkayga ka hor xaafadda la soo galay wiilkayga ka hor dhowr maraa la soo weerar xaafadan odayaalka dhaqameedka dhan inaa baxnay taliyaha u tagnay taliyaha waa u tagnay wax noo qabaa dhan xaafadda waa dhiiditaa waa habeenkii maqribka deligaar waa la kala ordaa 12 saac deligaar waa la kala ordaa ninkaas mobilkiisa waa la ordaa waa la soo galaa lee jayga markii la salsaayay waa la soo galaa noluu saa anaga xabsi xaafadda waa jiifo weysanahay marka taliyaha marka u tagnay insha Allah maanta ka bilaab waxaan ila qabaraawi maalintii ugu horreysay 10 qof ugu tagnay maalin kale u tagnay hal habeen noo yimid taliyaha waa maasan yahay 2 saac been noo yimid banaanka la soo wada baxay waa gudbay isku habeenkii soo galeen xaafadda nabad ma jirto dhib ay yaalo xaafadda shooriga halaga soo gaaro wax jiro nabad ma jirto meeshaan macwiisley nima macwiisley la yiraahdo macwiis isku soo dagayaan qoryaha ka wataan kii mobile hatta mobile dika waa in qoray kugu garaacayaan wali qoyska Jamaal Cabdulaahi waxay isku dhaafinayaan xanuunka dhimashada wiilkooda isa samarsiin iyo inay wehel ka dhigtaan xasuusta iyo sawirada wiilkooda dad badan oo la dulmiyena waxay dawladda uga fadhiyaan in dadka dambiyada geysto cadaalad la hor keeno halkaan aad u jeedaan waxa ku sugan qoyska Xuseen Maxamed Jamaal oo